waad salaamantiin kusoo dhawaada mar kale ee video kale cusub runtii ilaah subhanahu wa ta'ala ayaa mahad iska leh oo in soo gaarsiiyay sanadkan cusub 2020ka waxaan Allah subhanahu wa ta'ala ka baryeynaa in sanadkan uu inoogu dhameeyo caafimaad bashbash iyo barwaaqo iyo dhibaato la'aan insha Allah maanta videogan waxaan kugu faa'iideyn doonaa ama aan kugu bari doonaa sida aad ku samaysan lahayd ama ba sida loo sameeyo animation loo yaqaano lower third waxa la yiraahdaa markaad qof videogiisa aad daawanayso waxyaabaha geeska kaaga soo muuqanayo sida facebookiisa instagramkiisa inuu ku soo xayeysiinayo tusaale ahaan halkan calaamada idin kaga muuqato oo ah facebookgeyga hadeertan waxaad u jeedaa inuu soo baxayo instagramkeyga haddaba sidaad ku sameyn kartaa animationkan oo la yiraahdo lower third videogan ayaan kugu bari doonaa ku soo dhaw muuqaalkan oo faahfaahsan okay asxaabta qaaliga ah sidaan u sameeyno waxaan u baahanahay application-ka lagu magacaabo Pixellab waana application runtii u shaqeeya sida Photoshop-ka oo kale waana application cajiib linkigiisa waxaa idin soo dhigi doonaa videoga hoostiisa ama hadba saad u taqaano description-ka application-kii ayaa soo kacsaneynaa markaan soo kacsano application-ka asxaabay waxaan tagaynaa Shapes oo yani halkan Shapes markaan ka soo gashano oo shape-kan noocan soo gashanaysa kadib color-ka ayaa dooranaysa oo yani color-ka Facebook ayaa dooranaysa okay color-ka marka doorato sidaas ayaa yeelaysa oo yani saas marka yeesho saas marka yeesho waa iska easy way sahlan tahay color-ka marka yeesho waxaad u baahan tahay hadeertan inaad qoraal soo qorto oo aad yani meeshan Shapes-ka ah color-ka inaad dhaxgeliso tusaale ahaan qoraalkan ayaan halkan dhax dhigaynaa qoraalkii markaan galno waxaan ku qoraynaa follow on page yani waxaan ku qoraynaa iga soo follow garee page-keyga kadib okay aan leenahay markii halkaas qoraalku uu inoo marayo meeshaan ay ku qoran tahay font oo yani nashqada qoraalkaaga aad ka bedeli karto aad dimaanaysa kadib yani nooca rabta aad dooranaysa markaad doorato saad u jeedo qoraalkii fartaan ka bedelnay saad u jeedo halkan waxa ku qoran follow on page markaad sidaas sameyso oo aad Shapes-kii doorato kadib qoraalkii aad dhax geliso waxaad u baahan tahay inaad save gareyso Shapes-kii macal qoraalkiisa si aad u save gareyso waxaad dimaanaysaa geeskan kadib transparent ayaad leedahay si PNG uu noqdo hadhow markaad wax ku sameysanayso uusan waxba kaaga darsamin background transparent ayaad leedahay kadib geeska ayaad taabanaysaa save as image ayaad leedahay kadib waa save gareynaynaa markaad intaas sameyso oo aad save gareyso kadib back ayaan leenahay waa soo laabanaynaa hadeer wuu inoo save gareysmay qoraalkan iyo Shapes-ka haddaba waxaan u baahanahay inaan Instagram-kana sidan oo kale aan ku sameyno qoraalkii ayaan galaynaa kaliya waxaan ka bedelaynaa meeshaan ay ku qoran tahay page waxaan ka dhigaynaa Instagram meeshii page ahead ayaan waxaan ku qornay Instagram waxba isma bedelin waa sidii waa yareenaynaa saad u jeedo follow on Instagram ayaa ku qoran kadib halkaas geeska aad imaanaysaa qoraalkii waxaad qabanaysaa yani waa istaajinaysaa si uusan u dhaqdhaqaaqin hadeer ma dhaqdhaqaaqi karo kadib Shapes-kii ayaa inoo soo haray waxaan doonaynaa in Shapes-kii aan color-ka ka bedelno kadib geeskan ayaa imaanaysaa color-kan ayaa dooranaysaa color-kan anigu wuu ii diyaarsanay haddaad doonto inaad diyaarsato balaaska ayaa taabanaysaa kadib meeshaan waa isku aadinaysaa orange-ga iyo yani guduudkan ayaad isku aadinaysaa okay aad leedahay soo markaad isku aadiso halkan waxaa ku qoran follow on Instagram iyo Shapes-kii isdul saaran markaad intaas sameyso waan save gareynaynaa
geeska ayaan imaanaynaa transparent ayaan sii dooranaynaa kadib geeskaas save ayaan leenahay haddeertaan waanu dhameynay Facebooka iyo Instagramka يعني follow in nala soo dhaho ama yani sheebiskii iyo qoraalkii aan isku darno waan dhameynay haddeertaan waxaan u baahanahay horta back aan dhehno waa laabanna kadib waxaan idil waan tirtireynaa markaan tirtirno muhiimadda haddeertaan koowaad waxay tahay hadday maadaama sheebiskii koowaad aan ku soo qornay follow on page haddeertaan waxaad diyaarinaysaa qoraalkaasi oo ah Facebook page-kaaga magaciisa ayaad qoraysaa su'aalaan aniga Facebook page-kayga oo yani la iisoo follow gareenayo waxaan ka dhigayaa Somog app si fiican oo waa inaad u fahamtaa hadda waxaan soo dhahnay follow on page yani page-kaaga magaciisa ayaad qoraysaa page-kii laga soo follow gareen lahaa magaciisa ayaad qoraysaa markaad qorto saas ayaad soo soconaysaa kadib color ayaad imaanaysaa colorka aan ka bedelaynaa madow ayaan ka dhigaynaa kadib front yani qoraalka waad bedeli kartaa markaad saas dhahdo oo Facebook page-ka laga soo follow gareenayo uu kan yahay magacaan uu yahay kadib transparent ayaan ka dhigaynaa oo haddana waa save gareynaynaa markaan save gareyno haddeertaan waxaa inoo soo haray Instagram-keena Instagram-keena magaciisa ayaan qoranaynaa oo yani meeshii nagala soo follow gareen lahay Instagram-ka nagala soo follow gareen lahay ayaan qoraynaa kadib markaan qorno saad u jeediin Nuurdiin Akaadir Instagram-kayga magaciisa ayaan qorayaa oo liiga soo follow gareenahay kadib save ayaan leeyahay okay intaas markaan sameeyno waxaan u gudbeynaa KineMaster sida loo editing gareeyo isku aadiyo qoraalkan iyo sheebiskan iyo waxaan oo dhan sida isku aadiyo waxaan aadinaa KineMaster waa inaad mid ogaataa markuu ugu horeyso waxaad soo degsanaysaa loogada Facebooka iyo loogada Instagramka icon-kooda Google inaad ku qorto waad ka helaysaa logo Facebook PNG hadaad ku qorto waad helaysaa Instagram logodeeda waa helaysaa waa inaad soo degsataa Instagram logodeeda iyo Facebook saas waa inaad ula socotaa okay inoo bilowba okay asxaabta waxaan imaanay KineMaster waxaan idin tus doonaa qaabkan ku editing gareen lahayn oo aan isku aadin lahayn wixii aan soo sameynay sawiraantii iyo yani sheebiskii aan soo habeynay sidaan isku sameyn lahayn oo animation iyo waxyaabo aan u gelin lahayn ayaan hooshiisa si gudgal doonaa KineMaster ayaa soo galaysaa KineMaster waa application aad u fiican haddaad u baahan tahay linkigiisa hoos idin soo dhigi doonaa videoga hoostiisa haddii teleefanka uu kugu jiro aad isticmaashana waaba kasii fiican tahay waan rajeynaa dhammaantiin inaad KineMaster isticmaashaan kadib balaaskaas ayaa taabanaysaa kadib halkan ayuu kuu soo gudbin doonaa yani saad doonto maaragtay muuqaalkaaga inaad u sameyso ayaad ka dhiganaysaa tusaalehaan aniga waxaan ka dhiganayaa 16 markaa ka dhigato kadib waxaan sii taabanaynaa media oo yani meeshii aan background ka soo gashan lahayn media markaan taabano background ayaan sii taabanaynaa kadib background-kan cadaanka ayaan soo gashanaynaa background-ka cadaanka markaan soo gashano haddeertaan waxaan halkan iskugu keenaynaa ama aan soo gelinaynaa wixii aan soo sameynay layer ayaa taabanaysaa kadib media ayaa sii taabanaysaa bix alaab ayaa taabanaysaa oo yani meeshii aad ku soo save gareysay sawiraantii iyo wixii kadib waxaan ku hormaraynaa Facebook loogada ayaan soo gashanaynaa hadayaan ku sheegay loogada soo degsan ku dhahay Google free ayuu ka yahay loogadii markaad soo gashato kadib layer ayaa ku laabanaysaa layer markaad ku laabato medium ayaa sii taabanaysaa kadib bix alaab aad dhahaysaa meeshii aad ku soo save gareysay sheebiska kadib yani waxaan halkan soo gashanaynaa sheebiskii haday aan soo sameynay oo ahaa follow on page kadib saan ayaan soo weynaynaa geeskan aan kaga aadinaynaa markaan kaga aadino saxda ayaan taabanaynaa kadib layer ayaa dib ugu laabanaysaa media ayaa sii taabanaysaa waxaana soo gashanaysaa magacaagii page-kii laga soo follow gareyn lahaa magaciisa ayaad soo gelinaysaa okay markaad soo geliso haddeertaan wixii idil
way inoo yaalan way isdul saaran yihiin kaliya waxa ka dhiman inaan animation ku darno oo socod ama dhaqaajin aan ku darno si aan ugu darno waxaan taawanaynaa loogada Facebooka markaan taawano waxaan imaanaynaa in animation meesha ugu horeysa u jeedo in animation ay ku qoran tahay ayaan taawanaynaa si aan animation ugu darno kadib yani halkaan ayaad imaanaysaa wipe right animation ayaa taawanaysaa left and leenahay hadeertaan kadib halkaan daqiiqadaha ama saacaduhu ordaayo animationkaaga iyo suu xawaarihiisa aad kasii dooranaysaa saad u jeedo animationkiisa ayuu noqday loogadii markaad sidaas animation ugu darto had waxa soo haray shapeskii ku qorneed follow on page waad imaanaysaa asagana in animation aad leedahay kadib isleegtii aad taawatay left ahay wipe left aad taawanaysaa magacii waaye dhib ma laha magaciina asagana sidaas markaad dhahdo okay aad leedahay kadib shapeskii aan kusoo qornay follow on page ayaan asagana in animation ku dareynaa in animation markaad taawato wide meeshaan ku qoran tahay wipe left ayaad taawanaysaa kadib yani animationkaaga saas ay ugu daraysaa haddaba aynu bilowno suu animationka aan ka dhignay si aad u wada aragtaan haddaba saad u jeedo waxaad ka dareemaysaa animationkii inuu aad u fiican yahay waxaan doonaynaa shapeskii inaan wax ka bedelno in animation tag markaad saas dhahdo saad u jeedo waan soo bilowweynaa haddaba saad u jeedo animationkii aad iyo aad u fiican yahay saad u jeedo animationkii aad iyo aad u fiican yahay okay markaad in animation ayaa hadeertaan samaysay haddaba hadeertaan waxaan sameynaynaa out animation yani markuu baxayo kadib out animation ayaad leedahay kan sidaan iska leedahay kadib loogadii ayaan imaanaynaa out animation ayaan leenahay out animation markaan dhahno saas markaad dhahdo animationkaasaa ku daraysaa kadib waxaan imaanaynaa shapeskii out animation ayaan leenahay okay in animationkii out animationkii ayaan fiirinaynaa suu ku soo baxay ama suu noqday waad arkaysaan dhammaantiin in animationkiisas ayuu ahay out animationkani waa sidaa haddaba halkaas waxaa ka dareemaysaa in maaragtay uu quruxu ku soo baxay animationkii haddaba waxaad u baahan tahay backgroundkan caddaanka inaad ka dhigto green screen hadhow markaad isticmaalayso si aad PNG ahaan aad ugu isticmaasho haddaba greenkan caddaanka ayaad taabanaysaa oo yani shapeska ama backgroundka kadib green screen ayaad ka dooranaysaa ama yani cagaar ayaad dooranaysaa cagaar markaad doorato hadhow wuxuu ku sahlayaa in waxaan aad samaysatay si PNG ahaan oo yani oo maaragtay wax background aan lahayn aad u isticmaali lahayd okay markaad sa samayso oo aad green screen ka dhigto hadhow green screenka way fududahay waad remove garaynaysaa adigoo chrome key ahaan ayaad u remove garaynaysaa okay waan save garaynaynaa hadeertaan wuu save garaynayaa hadeertaan wuu inoo soof garaynayaa ma doonayo inuu videogan sii dheeraado waxaan rajeynayaa haddii aan sameynay Facebooka animationkii waan rajeynayaa in Instagramkana saas oo kale aad ugu tixraaci doonto oo aad sameyn doonto maxaa yeelay Instagramka haddii aan si sameynaa aad dhaho waqti ay ugu dhumaayo sida Facebook aan hadeertaan animationkii iyo wixii aan ugu daray ayaa sidoo kale Instagramkan aad ugu sameynaysaa animationkii aad ugu daraysaa waan rajeynayaa inaan videogan wax ka faa'iiday sida aan Facebook hadeertaan u sameeyay oo animationkii in animation iyo out animation aan ugu daray saas oo kale aad ugu dari kartaa haddii aan videoga si kordhiyana ama Instagramkii hawshiisa aan sii galo oo yani animationkiisa aan sii sameeyno waqti ayaan ugu baxayo waan rajeynayaa inaan video wax ka faa'iiday Facebook sidaan u sameeyna hadaad si fiican u daawatay waan rajeynayaa inaad sii sameyn doonto Instagramkana waan rajeynayaa inaan video wax ka faa'iiday waxaan u balna videogan video ku xiga insha Allah